بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا لا قالقة مال كستو دنيا نوشين وهن إذن لا يهي الله إذنكم بركة الله إذنكم حفتي نفتين إيو وحاج عشيشين وقيرة بعد سلام سونقد ونكسن قصوين كيني أهل ذكري قبله صوماليات كوبهوبي ذكرك إلهي فائدوينك إيك هلين انتو عصب وحان لينا سو دوادا halkaan waxaan uga hadalnaa ذكرك fadligiisa barakadiisa waliba gabdha Soomaaliyeed oo aan ahayn ajaanib nugu soo bir aad liibaantide أحبابي وحنو قد قلاي قصة ولا شين وقت دير أيان اسكو كين تنبيسي هرت قصة أباي وحي إلى قيبسة 2018 ولا لهي نلس عنجر أمبات دريمي كرو قصة حتى فيديو يال أنكو سوقاتها جيران ثا أمالينا 2019 2018 16 15 إلا إيو انتا صودا مركا waxaan guda galay qisada abaay waan isweynay waqti dheer ila soo xiriirtay mar hore qisadeeda ii dhiibtay qisooyinka iga dhumay kamid noqotay dib ayaan u soo helnay qisadii marka way ii dhameystirtay binu aadniya ah waan ilaabay saastarteeda ma jeclaysan inaan soo daay qisada laakiin hadda ma sha Allah tabaaraka raxmaan qisadii oo dhameystiran haya أباي وحيتر أباي فلسنة إنتان إذن كسو بيرين كهر 2018 كهر إنتان إذن كسو بيرين وحان أهاي تري كبر هبين كستو كسو قعد حلقة صلاة الصبح أهدان إيو سورة البقرة أول آخرنا وحالي إليه هاي أهدان كان مقلايا تري وعد كلية ما أهان أركتي إيو سورة البقرة آخرنتي هذا والنبي آدم waan soo kaca waan soo fariistaa xilliga markaan soo fariistana salaada adinkeeda dhaco xaaladaas aniga ku sugan aan idin bartay waxa ay ahaan jiray tir abaay filsan xanuun fara badan waxa kamid ahay xanuun madaxa iga haayay madax xanuunka migraine-ka dadka ay dhahaan Soomaalida ajaanibta ugu taqaan English lagu dhaho laakiin xanuunka madax xanuunka zaa'idka ah amal ay qaban jireen banaanka hadaan aado anigoo soo qabto anoo banaanka joogo suuqa dhex joogo indhahiga kalara ka baxaayo waxba ma arkay waan fariisanaya kalara noqonayaan cagaar buluug jaale waxyaabo kalara tusinayaan bartan joogan fariisan jiray ilaa aan ka soo saxsaxo ama qof itaqaani aragto iga soo qaato xaaladaas anigoo ku sugan waxay tiri abaay macaan horta suuratul baqara markaa ka hadla jirtay hore waa maqli jiray laakiin markaa ka hadla jirtay go'aan qaatay dhiirigelintaadii suuratul baqara waxaan soo qaatay kitaabka quraanka ee qalinka wato waxaana xifdiyay suuratul baqara faa'iidadaas weyn ayaan helay waxay igu xigay in haddana xawqalada ka hadashay mucjisadan waxay qusaysaa xawqala waxay tiri abaay filsan waxaan ahay suuratul xawqalada markaa ka hadashay aad qof xawqalada u aqrisato horta waxay tiri adkaar caadi aan aqrisa jiray marka waxa moodi jiray tiri mugdi imadu inuu iga baxay madaxiga ka baxan moodi jiray laakiin xanuunka wali wuu ahaan jiray xawqaladii aan bilaabay si bilaa xuduuda حد لهين ترى لهين إلا أفكو إدهالو أما أنك سيحضو هبين ذا كميدا وحاد عادي تري إن ريل إيغو إمادو لبني نوكا كابن أو روح بدن ياب سوسي سعودي وحيقو دهين وانا لو سو كاتر وحانا لو تري إنا قلين كوكو سمينو
waxaan ku iri sidee waxaa la dhahay fiiraade madaxiyaa la iga qaaday halkaasaa la dhigay waa la dhaqay mid ka mid ah aad u dhaqay labada nin midna halkaasoo kale fadhiyo wuu weysaysanaya su-aalaan weydiiye wax waariye waa dareemi kartiin su-aalaan weydiiye waxaan ku dhahay madaxayga goorma laygu soo celinaya degdegna laygu yiri nasiib ayaa leedahay qof nasiib leh ayaa arrinkaana ku dhacaa waxay tiri isla markiiba madaxyaa laygu rakibay macnaha madaxayga la ii soo celishay sidaan dareemayo waxaa noqday qof hadli karo waxaa laygu yiri tiri fariiso wad caafimaadee weysiisay 2 ragcad duko ilaahay u mahad celi wayna iga tageen abaay filsan xanuunkan bariga iigu dambeysay xanuunkan xanuun dheedheel ma ahayn waa dareemi kartiin xanuun wuxuu ahaay banaanka iyadoo joogta abaay hadduu qabto waxba aana arki karin maskaxdeeda indhaheeda dhan indhaha xanuunka madaxa ka haya dartiisa indhuhu ay kalar bixinayaan dhibaato aada u weyn haysa jirta marka halkaas waxaan ka faa'iidnay xawqalada fadligeeda iyo barakadeeda abaayana xanuunkii bariga ugu dambeysay ilaahay subxaanahu wa tacaala boqorka ayaa ka dulwaday qisooyinkan iyo qisooyin lamida iyo kuwa kasii daran iyo kuwa ka mucjiso badan na way soo socdaan gabdha jidka ku dhici jiray suuxi jiray suuxtinimo qabay xanuuna badan qabay ilaahay ka caafiye kuruub weyna waan furanay oo wuuna furan yahay sidee walaalahayga ii dhiirigelinayeen inta taleefankayga haysato ilaahayeen waan kuu baahana noo soo laabo dhiirigelintaada kuruub waxaa jira hadda oo walaalaha aan digriga ku qaybsano wardi fara badan ku akhrisano ummadana uga soo duceyno anagana ku duceysano hadaa u baahan tahay inaad noloshaada bedeshid nagu soo biir aad liibaantidi wax lacag lagama rabo wax xujo ahna ma jirto just only inaad tahay daacad ilaahay dartiisa noogu soo biire oo rabo inuu noloshiisa bedelo kuna dabaqo noloshiisa inuu bedelo kheyr u bedelo deganaasho mudmaina isfaham family iyo nolosha ku qurux badnaato diyaar intaas hadaa u tahay aniga waxaan ah shaqaale ilaahay shaqaaleysta intaan aan sheegay ilaaha iga keenay in badan walaalana way ku fiicnaadeen wayna ku soo bedelmeen aniga idin la hadlaayo aad dhiirigelin idinka helo marka nagu soo biir aad liibaantida insha Allah kheyr iyo baraka dhamaantiin walaalahayga qaaliga ah intii aan kala baahnana waxaan leeyahay soo noqod wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu subxaanahu wa tacaala boqorka ahay ummadii badan naga faa'iideysay kuwa kheyr iskugu soo laabteen ilaahay naga dhigo kheyr iyo baraka dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh